وحسن المسلم كما يسيوضينا إن شاء الله أنت ينكر دمينين markaynu isaga dhamayno un baynu kan kalena u gudbi doonaa asmaada insha Allah si aan isu dhaxgalin adkaaru nawm wa dikrigi hurdada marka quraankii buu soo horeysiinaya waxaad arkaysaa marka quraankuna inuu kamid yahay ugu horeeyaba dikriga Ilaahay inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidun قرآنكي بقى إلهي الذكر وكشاغة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ذكر بقى إلهي وتلقى القرآن عدكوا أن توبة سامجرت سيدو النبي السمين شرع عليه الصلاة والسلام علينا بريا وسجود وين شرع قرآنك يدعوينك يجمع كفيه لبدي سكف بقف يسجينيا سيدا مركو وحنطوب سنة يوكلا ثم ينفث فيهما markaasuu ku tufaya labada gacmood dhexdoodu wax yar ku tufaya fa yaqra'u fiihima wana ku akhriyaya marka sida ka muuqanaysa tufidu ku bilaabaya mar wal u dhameeyana uu ku tufaya waa gacmiyo uu sugeeyo oo quraankii uu ku akhriyay ayuu ku tufaya marka muxuu leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim قل هو الله أحد وحتى لا إله إلا عابد يا كلي الله الصمد إلهي سجن با وحلا قستا وحلا ضنت لم يلد وحبا مدلين ولم يولد لما ندلين ولم يكن له أما أهان أحد قفنا كفءا أما كفوا عذو دق ما يسامج طال مدي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ وحن مجن قليلا برب الفلق إله واجد اللاعية من شر ما خلق wax kasta oo abuuray sharkiisaan ka magan galay wa min sharri ghaasiqin yamid madoobaada ida waqaba markuu dam yiraahdo waa habeenkii ama wa min sharri ghaasiqin mid dhaxkala ida waqaba habeenku markuu madoobaado waxaan ku soo dhuuntay baliya baaska ah ayaan ilaahu ka magan galay wa min sharri nafaathat kuwa wax ku tuftufa fil uqad kuntimaa kuwa wax ku tuftufa ayaan ka magan galay markay wax sirxayaan waxyaabo intay kuntaan bay wax ku akhriyaan wa min sharri haasidin idha hasad ka waxaasidaya sharkiisaan ka magan galay ilaahay markuu hasadka wadaba bismillaahir rahmaanir rahiim qul a'uudu bi rabbin naas waxa tiraahdaa waxaan magan galay rabbiga dadkoo dhan abuurtay iska leh malikin naas khalqigana isagu iskaba leeyahay cidiba ku haysanin dadka ilaahin naas dadka ilaahooda iyagu ay caabudayaan cibaado xaq u leh min sharri alwaswaas ka wax waswaasiye qofka bani aadamka ka shakisiya laabtiisa wax ku abuuro shaydaanka ayaa ka magan galay al-khannaasi ay isqarinaya alladii kaasoo yuwaswisu xumaynaya fi suduuri naas dadka laabahooda kaasoo min aljinnati wan naas jin iyo bani aadam bale oo qofka marka aad iyo jeer namiimiyuhu uu ku helo shaydaanka uu ka daran yahay waxa dhacaysa qofkii oo caadi ah ay xumaday qabanaysa marka wax lagu akhriyo dabeetana waa ka kala wareegaya silanaanaya thumma yamsahu bihima labada gacmood wuxuu ku masaxayaa markuu sida qulcuudiya ugu akhriyo mastadaaca min jasadi jirkiisa inta uu gaadho ayuu ku masaxayaa yabdaa bihima wuxuu ku bilaabayaa labada gacmood ku akhriyay quraanka ala ra'sihi wa wajigiisa iyo madaxaas uu soo bilaabaya xagga wajigu marinaya يا وما أقبل من جسدي يا شركيسة إنتن سوتشيده حاجة هرات مرحة يا وجهك يا حاجة سوتشيد كاتكوب بلا بيسا تنا أنت أتجاردان أياد مرينيس وقاشام كيوي هو كوسور ده الشيطان كوحي لقى حرانيوي يفعل ذلك 3 مرات صدح جرب صدا سمينية وصدح ذيبا مر بتكون آخريس مر لواد بتكون آخريس مر صدحات بتكون آخريس مر والبنوات مرينيس ساسو النبي محمد سمين شري عليه الصلاة والسلام وابنبي أمضى هو أود بطنا يقول دفاع بطنا إنه نواليدنا الله إله لا إله إلا هو إله حق لقو عابدا ما تشري سقو المويان الحي القيوم وكين لشي ساي دائم توحل بهبية لا تأخذه سنة ولا نوم هردي لولا طانا مقبط سندنا والولده هرددنا وحويان هردد وين بدنا مقبط له ما في السماوات وما في الأرض وحو إسكال ليها وحا كسوغان سموين كيا وحا لولك كسوغان
man dha aladii yashfacu cindah ilaahay agtiisa ayaa ergayn kara dee ilaa biidnihi isagoo fasaxa mooyaane cid erga isqaadqaadaysoo erga imanaysaa ma jirto yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum ilaahay wuxuu ogaanayaa waxa khalqiga ka horreeya waxa ka dambeeyo cilmi buu ku koobay ama aakhiro ka horraysa iyo adduunyadoo ka dambaysa labadaba wuu ogi walaa yuxiiduuna koobi maayaan bishayin min cilmi shay cilmigiisa ilaahay ka mida ma koobi karaan ilaa bimaa shaaa wixii uu doono mooyaane wuxuu doonunbuu khalqigu ogaan karaa haddee ilaahay ogeysiiyo wasica kursiyuhu kursigiisu ilaahay wuxuu ka ballaadhay alsamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka walaa ya-uuduhu ilaahay dhibi maayo cuslayn maayo xifduhumaa ilaalinta samooyinka iyo dhulku dhibkuma laha ma cuslaynayo waayo isaga abuurayba wa huwa alcaliyu kii sarreeye weeye alcadiimu ee weyn markaa saddexdaa qulacuudiyaa la yidhaahdo iyo aayad kursiga macnahoodu waa caynka aayad kursidiibana saas uu akhriyey oo ku jirta suuratulbaqara aakhirkeediina waa akhriyaya waa aayaadkan soo socda markaa suuratulbaqara labadaa dhinac bay kaga jirtaa aamana arasuulu nebi maxamed waxa uu rumeeyey bimaa unsila ilayhi wixii lagaga soo dejiyey min rabbihi ilaahiisa oo waxyigii oo dhana iyo risaaladii waalmu'minuunana way rumeeyeen wixii lagu soo dejiyey ilaahay baa ammaanaya kullun ku kastaaba aamana billaahi ilaahay buu rumeeyey wa malaa'ikatihi iyo malaa'igtiisa wa kutubihi wa rusulihi kutubtiisa iyo rusushiisa laa nufariqu bay idhahdeen kala kaxayn mayno kala qaadi mayno bayna axadin min rusulihi rusushiisaa qaar ka mid ah oo sida yuhuudda iyo kiristanku sameeyeen waxay idhaahdeen qaarna waanu rumaynaynaa qaarna waanu diidaynaa laakiin ma kala qaadaan mu'miniintu iyo rususha ilaahay way wada rumeeyaan wa qaaluu waxay idhaahdeen mu'miniintaasi samicnaa wa adacnaa maqallay oo aqbalay wixii naloo sheegay qufraanaka waxaanu doonaynaa nadlubu qufraanak ilaahu dembidhaafkaagun baanu doonaynaa rabbanaa yaa rabbanaa wailayka almasiir meesha loo soo noqonayaana waa xaggaago aakhirana waa rumaysanne laa yukallifu allaahu nafsan ilaahay nafna ma saarin ilaa wuscaha awooddeeda mooyaane diintoo dhan waxaa ilaahay uu dadka ka doonayaa wixii ay kari karayaan lahaa maa kasabad naf waliba wixii ay shaqaysatuunbay leedahay khayra wa calayhaa maktasabat dusheedana waxa saaran wixii dembiya ee ay shaqaysatay rabbanaa bay yidhaahdeen mu'miniintii ilaahyagiiow laa tu'aakhidnaa ha noo qabanin in nasiina haddaannu ilowno oo akhda'naa ama aanu gefno gefiyo ilaa wixii nooga dhaca ilaahayow ha noo qaban rabbanaa bay yidhaahdeen ilaahayagiiow walaa taxmil calaynaa isran culays ha nagu xambaarin wax culus ilaaha wana saarin sidii ummadihii hore kamaa xamaltahu sidii aad u saarteed u xambaarisay cala aladiina min qablina ummadihii annaga naga horreeyey yuhuuddi iyo kuwayaalahaasii axkaamta culculusoo loo saaray ilaahu annaga ha noo saarin bay ku ducaystaan rabbanaa ilaahayagiio walaa tuxamilnaa ha nagu kalifin maa laa daaqata lanaa bihi waxaanaan kari karayninba wacfu cannaa ilaahayow iska kaaya cafi waqfir lanaa ilaahayow noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta mowlaana hiiliyahayagiiyo gargaarahayagaa tahaye fasurnaa nooga hiili cala alqowmi alkaafiriina kuwa gaalada ah marka aayaadkaa suuratulbaqara u dambeeyana macnahoodu waa caynka markaad sii seexanaysa kuwaana waad akhriyaysa waa wardigii qaaligaha wey waaya dikrigu markuu qofku sii seexanaya akhriyaya kuwana ka mida bismika rabbi ilaahayow rabbigayow ismigaagii aniga oo kaashanayaan wadactu jambi dhinacayga dhigay dhinacayga waxaan dhigay bisinkaagaa ku dhigay wa bika arfacuhu adiga sababtaadun baan kor ugu qaadayaa dhinacan oo haddii aad garabkayga gashuun baan kici karaa wey ood tiiriso fa in amsakta nafsi ilaahay haddaad naftayda qabato aanan sooba toosinoo idishana farxamhaa ilaahayow da isaga naxariiso ilaahow tan haddii aad sidaaba iga qaadda u naxariiso wa in arsaltahaa haddii aad sii daysoon soo toosana faxfadhaa ilaahayow waxaad ku ilaalisaa bimaa taxfadu bihi waxaad ku ilaalisa cibaadaka saalixiin addoommahaaga waa wanaagsan markaa qofkii kolkuu sii seexanaya wuxuu diyaar u yahay inay kawba ka tidhaahdaba inuu dhintoba inuu soo toosi waayaba intaasunbuu ku fikiraya mar walba geerida daaqaddu soo dhiganaya gadaankay u suran malag mid malagga iska fogaynayaoo aroorta adoo digdiglaad toosaysaa odhanayo alamkuun sii buuxinaya maaha ha buuxiyo alamkoo shaqadiisa ha u diyaargaroobiya saacaddiisa laakiin malaggana diyaar buuyi allaahumma ilaahayow innaka adigu khalaqta nafsii naftaydaad abuurtay wa anta tatawafaaha adunbaa oofsanaya tan adunbaa dilaya
intoodii abuurtay haddana adunbaa nafta iga qaadi laka mamaatuhaa wa maxyaaha geerideedii iyo nolosheedaba adaa leh laka mamaatuhaa wa maxyaaha geerideedii iyo nolosheedaba adaa leh adaa i nooleeyey adunbaana i dilaya in axyaytaha haddaad noolayso faxfadha ilaahu ilaalin ilaahayna wuxuu ihi fallaahu khayrun xaafidan wahuwa arxamu raaximiin cid wax ilaalisa ilaahay baa u wanaagsan una naxariis badan wain amatahaa ilaahayow haddii aad dishana fakfir lahaa ilaahu miskiinadan isaga dhaaf ilaahu iska kay dhaaf allaahuma innii asaluka alcaafiya ilaahu caafimaad baan ku weydiistay cudurkayga caafimaad cadaabkayga caafimaad dembigayga caafimaad xumaantayga caafimaad waa ducadaasi weeyaduna ducada kale iyadana la akhriyay markaad sii seexanaysaa waxa weeye allaahumma qinii cadaabaka ilaahu cadaabkaaga iga badbaadaya yowma tabcadu cibaadak maalinka aad soo saaraysa addoommahaaga ducada kale la akhriyayaana waxa weeye bismika allaahumma amuutu axya magacaagun baan ilaahay ku dhimanayaa ku noolaanaya anigoo ismigaaga xejisanaya oo ilaahay ku rumaysan ayaan dhiman oo aan noolaanaya marnaba mid carabka ka dhigaya may waa wardigii la akhriyay markii la sii seexanay subxaan allah walxamd 33 saddex soddon baad ku celi subxaan allah sidii wardigii bacda salaad oo kale walxamdu lillaah 33 saddex soddonna alxamdu lilaahi wey wallaahu akbar allahu akbar markaa waxa weeye waa la socda wallaahu akbar ayaad odhanaysa 34 afar soddon markaa boqolkiiba isku buuxsamay tan u dambaysa 4 laba meelood oo min 6 iyo min 3 iyo meel 4 saasaa boqolkii uu ku buuxsamay markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xadiid saxiixa ku yidhi intan qof ayaa ka soo cabatay shaqaalo la'aan inay gacmihii daaleen oo wixii ay ridqaysay iyo waxay tumaysay ay ku daashayba aabadee addoomahana dadka u qaybinaysa maad qaar aniga inay sii shaqaalo ah intanun buu u dhiibay sidan u wardi un buudhaabo markaa waaba tacbaanka waabaad ka nasane adigu inantaada 4 midh baad siin lahayd shaqaalaha laakiin nabigu wuxuu yidhi anigu wuxuunan ku hayaa wardigan un baa ku hayaa saddex shaqaalaaba way ku dhaamaa markaa qof shaqaaliiba tanaa uga fiican marka waxaa laga fahmaya halkaa dikrigu wuxuu bi'iyaa culayska ruuxda iyo culayska jidhka labadaba markaa qofka ilaahay xusaya daakirka ah iyo ka qaafilka ahi isku awood maaha jidhka iyo ruuxda labadaba markaa waxaa lagu baabi'iyaa daalka laftiisa ayaa lagu baabi'iyaa dar badan haddaad intaa u sheegtaa tiraa dikrigaa daalka baabi'iyaa waar inaga daabay koolan doonaa waar inaga daabay koolan isma qabanaye cunadii iyo hurdadii iyo maydhashadii waxa saabiiye ayay kugu akhri doonaan laakiin tan nabigu baynu raacayna calayhi salaatu wasalaam wadigoo maanta oo dhan daalana marka tan akhrido waad nasanood nafisiba iskeedadana isteerinka iyo arrinka mixwarka waa jidhka waa ruuxda marka ay ruuxdu nasato jidhkuna uu nastaa qofku hadduu faraxsan yahay oo mafsuud yahay waxba ma yeelo culayskan jidhku hadduu laakiin maanta oo dhan ha fadhiyo waxba ayuu qabanine leewarka hayo oo maskaxdiisa culays badan iyo warwar iyo qalaq iyo naxdin ay saaranta halkaaba ha iska fadhiyaba wuu daalan yahay wuu tacbaanaya bal cudurrada ugu khatar badan baa ku dhacaya cudurrada ugu khatar badan iyo waxa ay ka yimaadaan deganaansho la'aanta hadday maskaxda tahay iyo haddii ay macaanka tahay iyo hadday dhiikarka tahay iyo hadday calool xanuunka tahayba haddaan ku idhaahdo calooshu markay maskaxda ku xanuunayso way shubantaa oo maba fadhiisato dee waa inaad rumaysato dhakhaatiirta weydii marar fara badan baa qofka isagoo calooshu ay xanuunayso ama shubmayso arrinkaasi uu maskaxda yahay maskaxiyan baanu qofku u deganayn qalaq nafsiyahoo haystaa keenaya calool xanuunka sidaa daraaddeed maalmaha uu faraxsan yahay way nafisaysaa calooshiisu kullu daalika wuxuunan ku muujinaynaa deganaanshaha ruuxdu wuxuu keenaa deganaanshaha jidhka deganaanshaha ruuxdana dikriga asalo ah dikrigii markaa aad sii seexanaysay kanaa ka mid ah allaahumma rabba asamaawaati sabci ilaaha samooyinka dhulka toddobada samo iska lahow warabba alardi iyo dhulka ilaaha rabbiga u ahaw warabba alcarshi alcadiim carshiga weyn ilaaha iska lahow rabbanaa warabba kulli shay carshi alcadiim carshiga weyn ilaaha iska lahow rabbanaa warabba kulli shay ilaahi rabbiga iyaga ahaa shay walbana rabbigiisa ahaayow faaliqa alxabbi wannawa bal ducadaa xeel dheeraanteeda eeg dhallaaxday qaadaysaa wax walboo ilaahay uu leeyahay bay si dhaba u sheegaysa
faaliq alxabbi wannawa xabadda yar ee soo baxaysa dhulka ka soo baxaysa ilaaha kala dilaaciya si uu geedu noqdo wannawa iyo laftimireed geedka dheer aad aragtee laftimireed ah waxa xabadda yar buu ka soo baxaya ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان صدح ذا كتاب إله سودة شيو أعوذ وحن كام جنجليا من شر كل شيء وحو البشر كيس من شر أعوذ بك من شر كل شيء والبشر كيس أما جن هذا أما جن إنس هذا أما بهل هذا وعدون إياها هذا شيء قاسو أنت أخذ بالناسية فودي ساعتيس garaadku halka uu ku jiro iyo jihayntiis shay walba ilaahay baa hay foodiisoo jihaynaya wax isjiheeya ma jiro Allahumma anta adu ilaahay al-awwal ki horeeya to falaysa qablaka shay waxba kaama horeeya wa anta al-aakhir ki dambeeya to falaysa ba'daka shay wax ka dambeeyana ma jiro tagidna ma laha ilaahay wa anta al-dhaahir ki muuqda to falaysa fawqaka shay wax ka sarreyn kara ma jiro وأنت الباطل كي باطنا باطها فليس دونك شيء وحكاسك يا مجر وحول بحوغال باط وحول كقالبات وحول بعضا كهرية وحول بعضا كضمبية هو الأول والآخر والظاهر والباطن حديث كان في السرية آيات داك سوغان سورة الحديث بلو قيدة اقضي عنا إله يوحد نقب حساء الدين دينت وأغننا من الفقر إله فقر قنا نقف الله فقرنا waxaad naga dhigtaa kuwa ka fayow deynta iyo faqrigu waa dadka labada gobonimada ka lumiyo haday deynina ku fuush faqiirna aad noqoto di qof iimaankiisu buuran yahay mooyaane mid kale uu nacasoobaya mid kale waa la adoonsanaya mid kale waa la faruur xiranaya dhinac la doonaa loo qaadanaya marka deynta iyo duruuftu labadaas oo dadka helay caalamul islaam waa labada lagu adoonsado maanta ظروف حالة أبور بالغو سمينا ظروف مركز ظروف تالغو سمينا طبعا لغو حكسينا ياين لجهيو لما ذا سيل هاي مركز سيسي عنيس إلهي بعد كما انقليس وحا فرابه الحمد لله الذي أضعمنا إلهي نقودي أيام هذا الأول عشي سوا حبار عمته وسقانا ورابي شراب وكفانا نقف الله وآوانا نسود ويا قرنا الدجيي فكم بدنا من منع لا كافية له وحكو فلان بأنو ترين ولا مؤوية وحكو ردشيانا أنو ترين إمي ساقا حيوع الله مري إمي سا إلهي كفر نضاف كنولك الله لا وحبو وايبا إمي سا وح كافية إيا وحسود ويبا أن هيسنين با مركا إلهي وحاد أقول ما هنقضي عنادي إيا عبيدي إيا قريقات كنا سنة يسير قشي meelo kala ma eegayo qofku iyo guriyaha dadka kale iyo waxay cunayaan wixii sanbaa ku filan oo Ilaahay ugu mahadnaqayaa wuu afdhigay nicmadiis ayuu afdhigay ma boodsana markaas uu Ilaahayna u kordhinaya intaas aad akhriyaysa markaad si seexanayso waa qof miir qaba la yaqaan Allahumma aalim al-ghayb wa shahada Ilaaha ogsoon waxa maqaniya waxa muuqdo faadir as-samawati wal ard abuuraha cirkiya dhulkow rabb kulli shay wa malika shay walba ilaaha iskale wa malikahu shay walba ilaaha rabbiga waa milkisana isagu iskale anta adugu ma ashhadu waxaan qiraya alla ilaaha illa anta ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin adiga uu mooyaan a'uudu bika waxaan ka magan galay min sharri nafsi naftayda sharkeeda ilaa haday naftu kugu soo muruxsato cidina ka joojin mayso iyada is wado istarawalinaysa ilaahu taa iga filow wa min sharri shaytaani wa shirki shaydaanka sharkiisa iyo gaalnimadiisa illa gaalnimu marka horeeyo baa loo seeyay waxa horeeyo badeecada horeyso bandhiga bani aadamka waa gaalnimo kama thali shaydaani id qaala lil insani kfur falamma kafara qaala inni bari'un minka marka horeeyo gaalow gulay ilaahu gaalnimadiisa ka maan galay وانا اقترف ان قاطع على نفسي سوءا نفتيدا ان الحمار قاطع ilaahu xumaanta naftayda ay qaadanaysa iga badbaad وانا جره الى مسلم iyo xumaan aan dadka u waarido dadkana inaan xumaan u geeyo oo u waarido oo u horseeda ilaahay waan ka magan galay intaas oo ducaa marka aad akhrido thumma yaqra'u qofkii si seexanay wuxuu akhriyaa tanziil sajda suurada la yiraahdo suuratu sajda ayuu akhriyaa wa tabaaraka alladhi bi yadihi almulk iyo tabaarak labada suuradood ay yarbaad ku akhriyaysaa kooban iyagana
wardigan oo 20 daqiiqo ma qaadanayo iyaro huuha iyo degdem aad oran lahayd oo hadal ah ay meel xagga dikriga u duwaysa adkaarti kuna kamida Allahumma aslamtu nafsi ilayk ilaahu naftaydi waan ku dhiibay anigu ma wada ilaahay waan isu ka dhiibay wa fawwadtu amri ilayk arrinkaygina adan ku bandhigay wa wajhtu wajhi ilayk wajhigaygina xaggaagaan u soo jeediyay wa alja'tu dhahri ilayk dhabarkaygina waan kugu tiiriyay ciidad ku tiirsanaysaa waa taageerahaaga marka dhahrigayga dhabarkayga adaan kugu tiiriyo cid kale ma lihin raqbatan wa rahbatan ilayk raqbatan aniga oo ku rajaynaya wa rahbatan aniga oo ka cabsanaya ilayk xaggaagaan ka cabsanaya xaggaagun baan rajaynaya minka bay markaa noqon raqbatan ilayka wa rahbatan minka anoo ka cabsanaya hadana ku rajaynaya لا ملجأ ما لا قلا ما جرت حسني من قلعد لا قلا ما جرت ولا من جاء فكشنا ما جرت منك أديك لقى فكره إلا إليك أديك مويان مركب ملجأ وقلعد لا قلا من جهنا وخلاص يبدباد ما لا قلا أنا ما جرته بدباد أنا ما جرته أديك لقى بدباد أما لقى فكره إلا أديك ونمويان قفكها عررا أديك كعر آمنت بكتابك بن رمي الذي أنزلت قرآن كتسود جسير رمي قرآن كان إنه يستنى إلهي نقول قلاضي والنبي كان هو الرمي الذي أرسلت نبي أصودرت وبالنبيك الذي أرسلت نبي أصودرتين وين رمي أنت هتي وقفك إلى هذا النبي يقولي فإن مت على الفطرة دينتي إسلام كانت كل مت هذا يصير كاجا دعاء أو كو أي كاتل هذا دينتي إسلام كانت كل مت تاسو النبي كبر خاتك عليه الصلاة والسلام حديث كان صحيحين كسوغان مركا أصحابي وحو يري وبرسولك الذي أرسلت مركو الدعاء كذب أخرية نبيك أيا وحو كبدلي وبرسولك الذي أرسلت وحو السري أرسلت أي رسولك إسكوها قاتش مركا النبي وحو كذا وحنكول وبنبيك أونده برسولك كبدلي مركا علماء وحا إليهين معناها النبي ودي ده waxa weeye fasaaxad xagga macnaha fasaaxad xagga luqada iyo faa'iido xagga macnaha de waa eray soo laba noqday laakiin binabiyika iyo arsalta de waa nubuwa iyo risaala laba kala macnay sheegaya oo nubuwadii baa guda balaaran risaaladiina waa si gaar marka ambiyadiina waa ku jira rusushiina waa ku jira taas ka dhagan sirta kale ku jirta waxa weeye faa'iidada ah ducada inaan la badbadali karayn علماء الحديث waxay qabaan shay loo yaqaan riwaayatu bimacna alhadith macna alhadith inaad oran karto oo macnaha hadithkii uu sheegayay eraya carabi oo kale intaad u isticmaasho ayaad sidaa saasuu nabigu yiri waa sidoo macnaha hadithka anigoon raacayo erayadii tixgelinayn baad leedahay laakiin taas waxay ku banaan tahay wixii aan ahayn ducooyinka iyo adkaarta ducooyinkii adkaarta iyadoo hadithka la daliishanayo سيدون بايق لقول دينا يلا جو حفظها وما روى ابن عازب لا يضعن فإن ذاك في الدعاء سنن وحب ابن عازب وريني أو إيريجنا وحيسوي شيء إن دعائنكو أي سنيهين كو سيدون الله راعي مركا وحنا بيقول عليه الصلاة والسلام مركا هذا دقوا ويسقى بدنا عميدك توسع حتى أما دنا عاقة بدك تو ولي بدنا عميدك تنتظر حتى ويسقبنا كسع حتى تكري جنا آخره كل كا وكوكو فلانيا ساوي حديث شيء الدعاء إذا تقلب الليلة قفكو هدوها بين كيس رقا دعوا آخرية تينا فهيدو حل الدونية مركز تيس خصوصا تبين خير تلعظم وابد هرديو انت تسوي رب العربتو لنا عن كدالي ايادنا عكلي سر رقيس انت اسال قولي كسي قارسي وح بالكورة وقت كلنا وهذا أنت تسرقي سي قميسي يا لقول أنت نقارسي إلا ديك لوح كلا قليه لا إله إلا الله الواحد القهار وإله كليدة القياض وما رب السماوات والأرض وما بينهما سموينك يدولك أنت كان حيث إله إسكالوي العزيز الغفار كي أود بدنوية عزيزة أمام بدنوية غفاره الدم بقاد ضعف دعاء الفزع في النوم ومن بلي بالوحش وحو تنوى دعاء يدكر إلى آخره
الفزع مركو أرجح كل عقفك في النوم هردده iyo waman qofka buliya lagu ibtileeyay bil wahshati didmo iyo cidlo ayaa qofkii lagu salidayo habeenkii buu argagaxaya waa aan fariiraya waa qarwaya wuu qaadiroonaya ama dubaab baabade helaya dubaabku waa luqadda ay ku hadlaan dadka qayla waxay ku leeyihiin xalay maan seexano dubaab baa helay dubaabkana talo muxuu yahay ma naqaanayno laakiin waa wax ku soo tukubaya marka waa waxshadan uu sheegayo oo qofkii oo cidloobay oo balwadi ku dhacday maskaxdiisii birbiraha bixisay oo khiyaali baa ku dhacay ruuxdiina way khafiiftay cudur baa ku dhacay jirkiina cudur baa ku dhacay marka cidlowgan ayaa ku dhacaya saadaradeed caruurta sasta iyo qofka sasaya habeenkii boodaya iyo dadka qarwaya dadka qaarkood baa isagoo iska soconaya hurda waanu soconaya waanu hurda marka la garaacaba la toosinaya raasu fariisanaya waxa soo dhan ducooyinkana lagu akhriyo a'uudu bi kalimaati illaahi taammat ilaahi kalimooyinkiisa baan deyrtaan magan galay dhamayska tiraa waa kutubta uu soo dajiyay iyo kalaamkiisa oo kelmadihiisa min qadabihi caladiisa aan ka magan galay iyo ciqaabihi cadaabkiisa iyo wa sharri cibaadihi adoomihiisa sharka ay leeyihiin wa min hamazaati shayaatiin iyo shayaatiinta waswaaskooda iyo waxshadiya didmada ay ku abuuraan shayaatiintu qof ayaan ka magan galay ilaahay wa an yaxduruun nuuntii baa go'an wa an yaxduruuni iyo inay shayaatiintu igu soo xaadiraan bal qofka shayaatiini ku soo urureen ay dushiisa soo tubeen ay ku soo xaadireen dee khayruma yaalo kay malaa'igu ku soo ururtayna waa khayr kay shayaatiini ku soo ururtayna hadduu ifka joogay iyo haddii uu sii dhimanayo labadaba karkaarkay weydaarinayaan ducada sal akhriya ما يفعل وقفك أخريا من رأى الرؤيا قفك رؤيا أرك أو الحلم أما ردب يسلل وحبو أرك رؤيا أرك حلم يقولون واك إسكو ولا قنا قفك ضد بدك السماية مركا منامك هدو ونكسين قيبها النبي النبي ميت كميدا ويبو كشيء النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بشارة قفك مؤمن كايل هايوسي لكن منامك هدو حيا دور سياد بكو إيمان كراه mid weeyana inuu shaydaanku ku ciyaaray waa mid sidana marka la sameeynaya waxa labaada suuragala in qofkani wax uu aad uga fikiray ama maanta uu arkay inuu ku riyoodo waxa saddexaad suuragala arrin caafimaad inay tahay oo qofku siiba hadii calooshu ay xanuunayso iyo maskaxdiisu khalkhal baa ku dhaca habeenkaas hurdaduna way ka xumaataa saddexda mid kastaba ha ahaatee arrimahani marka ay kugu yimaadaan habeenkii adoo hurdee maraamka noocan aad aragto talaabooyin kala qaadaysa marka hore yanfuthu an yasaarihi thalatha dhinaciisa bidix buu saddex jeer yaroo khafiifa ku tufaya oo candhuuf yaroo khafiifa ayuu ku tufaya nafadku wax yaroo khafiifa la raacinaya saddex jeer yastaciidu billaahi min ash-shaydaan ilaahay buu shaydaanka ka magan galaya wa min sharri ma raa iyo waxa uu arkay sharkiisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت إلهي والشيطان كي يوحنا ركيبا شركي سان كامل قرية صدح جرب كوع العلنية لا يحدث بها أحدا وسيد النبي قيل عليه الصلاة والسلام قفنا وقوى الربي مايو والرواية وحيث فإنها لا تضره رياضة سيدي بما يسهدان وضدك وقشاكين وحال لقفها ما يهدوك شاكية وحي حماينا دي بكرته طلابة الصدحات وحوي يتحول عن جنبه الذي كان عليه دينعي وهردينا وسكر رقية هدو ميدك توهردي حتى بيدحد وسر رقية طلابة أفرادنا وحوي يقوم يصلي ويستاقيا وتكنيا إن أراد ذلك هدو الصلاة دور هدو كاريكانا صلاة كدر يا ويسية صلاة كدر وركيسو انت أسوكو هاري دونا وحي حماية للسعودي أما وحي كوي بهالك أسوكو هاري تلابوين كاس شنطة أيو قاضية أفعالية أذكار دعاء قنوت الوتر والدعاء دي الآخرية هذه يتجار مركة وترقة الدعاء دي لقوا آخرية مركة وصير لمانية اللهم اهدني في من هديت إلهي يهنوني يقدر ضدك هنونيس وعافني في من عافيت ضدك إلهي وعافي ماذي سي أنا إلى عافي ماذي يقدر
وتولني في من توليت إلهي وحل قاد وإيقا مسؤول نقو وأرهن كيغا إلالي في من توليت ذاتك هذا حل قاد أرهن كودا قعنتا كوها يسير تولي إلهي كوها يقدر وبارك لي فيما أعطيت واحد السيسين إلهي بركه واحد لقو سيهدو بلا بركة نغضو وبلاي وقني شر ما قضيت واحد حكمت الشركي سيلها يقبت بالي قام هذا وحي الشر يقدو فإنك تقضي عدو وحباد حكمتها ولا يقضى عليك هذا لقو ما حكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لقو ما حكمه عدو باو حكمه إنه أرنك وحي لا يذل مد اللوبه من واليت عدة عدو حريريسات سودا ويسي تولي كدير ولا يعز شرف ما يش من عاديت عدة علاديس عدو كون نقط عسي شرف ما يش تباركت وبركة بضت إلهي تباركت تعاليت حمان ورنا ذيك كفق ربنا يا ربنا وتعاليت وأنا أتكسر هيسا وحي أنكوها بورين ورنا اللهم إني أعوذ برضاك إلهي وحن كم مجنجل وحن مجنجل يرال النقشها من سخطك عرض هذا كم مجنجل إلهي وحن كويدي استرال النق إن هذه الرال نقطون ذي عرار وبمعافاتك عفس كان إركضان عرري من عقوبتك كمان كعرري إلهي ويعفيها عقوبين وأعوذ بك منك أعوذ بك أذيك أن كو عرري ومنك أذان كعرري دبك الله ذينا وكعرري دفت هذا نوان دونية لا أحصي ثناء عليك إلهي ومكو بكراء أمانتك وأماني أنت أذو كما أثنيت على نفسك صاد نفت هذا وأمانتك وما أماني كرا إلهي أنا أنت ريتوا أنت أنا قارنين وجهينا وأنت لكن أمانت هذا أذوكم بأكسون أنت أيتها أذون بقرنا يا الله اللهم إياك نعبد إلهي وأذون بانك عابدين كلها مركز الدعاء نيادو السيدة الصحيحة تنصص عطاء أنت كالك كبلاد ميسا إله ونخلع من يكفرك اللي قاعده السيدة الصحيحة هي وحوي إن عمر بن الخطاب يسقوا كل واقو أخري مركز ده سنها خلافنا كده إذا هيد لكن هذا الكي رسول كما السيدة صحيحة عمر بن الجورية وأثر موقوف صحيح على عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم إياك نعبد إله وأذيك بانك عابدين كلها ولك نصلي ونسجد أذيك بانك تكنينا ونكو سجودينا وإياك نسعى وإليك نسعى حقاقا نسور دينا حقاقا أيا نسور دينا ونحفد أنوسو دقدقينا نحفد أنو دقدقينا نسرع حفدة وحا الله يراهدا دائر يرير لو أوويهاي والدك أووغا هو دردرته سيدي إلهي ومدى مركو إنه منا شاكتي وحو إلهي سيي در حفدة أيوليسي ومركاس لو أوويهاي نحفد مركا حقاقا نوسو دقدقينا نرجو رحمتك نحريست هذا نرجينا ونخشى عذابك قنوا كبقنينا إن عذابك إله عذابك بالكفار قال هذا ملحق مثل هليشين يوي أما ملحق مثل هليل يوي اسم فاعلي اسم مفعول بعض وكسورة قالوا مركا ملحق نواكي هليل يا عذاب ملحق نواكي الهليشين يا إله أديك كل ذي قال هذا اللهم إنا نستعينك إله كركار بانك ويدي سنين ونستغفرك الذنب الله فنوانك ويدي سنين ونثني عليك الخير إله خير ورمانك هو أمانينا ولا نكفرك كقالوا بمين ونؤمن بك وكرمينينا ونخضع لك ونسكها قابنينا سكها مسكينينا ونخلع ما يكفرك وحنكبر النقرينا كفقانينا كعررينا كقالوا ونخلع وحنسيد درك وسيبينا ونكدح بحينا كفقانينا نترك من يكفرك ككديدا ونديدي إلهي كديدي كدبا عررا إلهينا يسقو ديدي marka saasa ilaahay subhanahu wa ta'ala la isugu xidhaa الذكر عقب السلام من الوتر وذكر الآخرية صلاة وتر marka laga baxo سبحان الملك القدوس بالآخرية 3 مرات 6 jeer إلهي با xumaan ka hufan oo ka hufan xumaan والثالثة marka saddexaadna yajharu biha qofku kor buu qaadayaayo ويمد بها صوته عدك kor ugu qaadaya يقول wuxuu leeyahay رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح وأذكرت الذكر كربا لو قادي سيدي بعد السلام من الصلاة مركز الصلاة لقبح دعاء الهم والحزن والدعاء ذي الآخرين مركز همي يحسن وكقدعه
ووروركي إيا ولاعي إيا والبهاركي وأللوغي فرها بضنا وحاوغا كوضا كعه وحن قال هذا وريريوي يددك إيمانك وكير هذا أمان إيمان بلهين همي حزني وباهيستا وكرياون قف وكرياون ووحا استرستك إلى هذا قلوك اللهم إني عبدك أدون كاغيباني وابن عبدك أدون كاغوين كل ليبانا هي وابن أمتك أدون تاضو إنا كيد الشيباني اللي هو يدان إلهي بأدونت ناصيتي بيدك إلهي وفود ديدو قعنت هذا كترتا أضائي تليا أدائي هقامية oo ihaya food markaa wuxuu ka turjumaysaa talada qofku halkay ka soo fushay go'aankiisu baa naasiyadiisa iyo foodiisa ku jirta maadin fiya hukm ilaahay hukumkaagu uu igu fulaya waxaan diyaar u ahay hukumkaaga iyo sharcigaagu inuu igu fulo adlun fiya qadaa ilaahay go'aankaagu aad igu xukuntaa waa cadaalad as'aluka waxaan ku weydiisanayaa bi kulli ismin huwa laka magac kastood leedahay baan kugu baraya samayta bihi nafsaka oo naftaada aad ku magacawday aw anzaltahu fi kitabik ama kitaabkaaga dhaxdiisa aad ku soo dejiso quraanku asmaa badan oo ilaahay uu leeyahay buu xusaa aw allamtahu ahadan min khalqik ama aad bartay adoon khalqigaaga kamida malag iyo jin iyo insi mid kastaba aadee adoon wanaagsan oo khalqigaaga kamida aad bartay أو استأثرت به أما أدلقوني النقطيبة في علم الغيب عندك علم الغيب كحقاك كم مقال مقع عضوة أدكولقوني النقطي وأنا دعيد بوشيقين با كان وانكو قبري مركالك أوحى ونامو يا حديث كاس أسماء هذا إلهين أنا كوكوبنين سقالية سقاشن كوشيقين نبي عليه الصلاة والسلام هي أنت كلام نصوص تكفر الصنبا إن بدنا الله ينبسوا قارسين باكرة إن بدنا خلقك قاركودنا يوجين باكرة ومسألة عقيدة هرنتي أتينا إلا وقادو أنت أصلاً كوبريه وحن كويديست أن تجعل القرآن كإن هذه قدكته ربيع قلبي كيبر واقعية برارية ربيع وجوجا دي جوجو محو بركودتك جوجو ودو وين فرحان وأنا برواقيستان إلهو قرآنك وبرواقة كدغا قلبيغا قرآنك وكفرحيا قلبيغا سيدا جوجل الله فرحه ونور صدري لابتيدا كيف تيمية إلهو قرآنك كدغ وجلاء حزني مرغدينا يعيلك يا هيا ميدغا دلقاده كدغ وذهاب هميغا ميدغا تكسيين إلهو قرآن كدغ marka dawada qalbiga iyo dawada ruuxda inuu quraanku yahay ayaa xadiidkaas u cadeeyay وصحيح أحمد بانوري ودعادي ولي مرغدي قلوبك يوقع دواغا نرشا ددك قاركود كهريماد اللهم إني أعوذ بك وحن كما قال من الهم والحزن مرغدي والعجز والكسل عاجز نمدي وهسية تعبان نمده وحقبس الآن والبخل بخيل نمدي والجبن فلي نمدي وضلع الدين هي الدين تبين يقى حوق بلطه وغلبة الرجال رجونا يجا حق بطع رجونا هو والله جاي بين يكون الدين تكوله رج الدين تيقول هنا يجا يدل بوحيانا يجا أتكالا أما رجونا بيبا مركز الدين تي دنيا دي بكسعة دنيا ددلي يدد كيبا إلى هو يعني يجا أتكان هدا يدد كي الدنيا دو كات كادا تأتي قريبا كوما دينابا تطبع ضدان النقط دنيا أدون بعض النقطة وديميسنت دقت صادقة دقت بقى همية حسن ما مركز تكون بحيح وأنا إنه أركي إن الدعاء لقى آخر السنة يدين إنه مركلا نقنيس ومرقدي حزن قالوا لقى آخر السنة مركي الدين تكون عصلاتنا والدعوين كلا آخر السنة دعاء الكرب ويتني مركو قفك كربيسية كديدية سوى عبنا يعتابي دعاء إلهي ولا عبنا لا إله إلا الله العظيم الحليم وإلهي وإنا حليم كهاية القات كبضنا لا إله إلا الله رب العرش العظيم وإله عرش قوين اسكلها لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض إله حق لقو عابد الله سموين كيرلك اسكلها ورب العرش الكريم عرش قوين اكسنا وإله اسكلها سبحانه وتعالى دعاء هو ولي النبي واد بو بدين جرا انه marka hamiga iyo xusniga ku soo baraynay ducaadana waqtigaas la akhriyadana ducooyinka la akhriyo waxa kamida marka hadiya jeer kurba ay qofka hayso
si uun musbaar ugu taagan yahay musbaarka nolosha markuu kugu taagan yahay aad qandhaysantay wax kaa sii yihiin kuwan aad akhriya allaahumma raxmataka arju ilaahay u naxariistaadaan rajaynayaa falaa takilnii ilaa nafsi naftayda ha ii xil saarin oo ha igu hallaynin darfata cayn ilbiriqdeed wa aslix lii sha'nii kullah ilaahay arrinkayga oo dhan hagaaji arrinkayga oo dhan ilaahay isku hagaaji laa ilaaha illaa anta ilaa xaq lagu caabudo loo ciirsadaa ma jiro adiga mooyaan laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin nebiga ducada akhriyey intaasunbuu celiyey nebi nuun ama saaxibulxuut nibiriga dhexdiisa ama bahalkii weynaa badda ku jira isagoo bartanka ugu sii jira ayaa waxa uu leeyahy laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin kolkaasaa ilaahay dhaqso u soo badbaadiyey ducaau lmakruub wey qofka kurbaysan ducadu akhriyaya allaahu rabbii laa ushriku bihi shaya ilaahay waa rabbigayga wax kaloon la caabudayaana ma jiro waayahay ducooyinkanayna waa kuwe iyaguna ducaau liqaa'i alcaduwi wadi suldaan waa marka cadowga lala kulmo iyo di suldaanika awoodda leh dadkaa xoog badanoo awood sheegtay marka aad la kulanto dikriganaad akhrii ilaahayna wuu dubaynoo quluubtooda wax ku dhufan ama si uunbaad uga fakan ama si uunbuu kaaga jeedin ama sharkooda kaa fududaan ducadanaad akhriyaysa allaahumma innaa najcaluka fii nuxuurihim ilaahay u dhuuntoodaanu ku gelinay dhuunta miyay soo dhaqaaqayaan madde kol haddaad ilaahay ku gudubtay wa nacuudu bika waxaanu kaa magan gallay min shuruurihim ilaahay sharkoodaanu kaa magan gallay sharkay leeyina ilaahay kaa magan gallay ilaahay adigu iskaga kaaya gudub kuwan oo aanayna soo gaarinba allaahumma anta cadudi ilaahay cududaydii baa tahay macnaheedu waa taageerahaygii baa tahay kii taageeraya muciinka ahaa wa anta nasiiri aduun baana ii hiilinaya cid kale ma haysto bika axuulu bika ataxarak weeye adaan kugu dhaqdhaqaaqayaa sababtaada marka bika axuulu xeelad aan yeeshaa waa sababtaada haddaan xirfad iyo xeelad aan wixii xun kaga wareega aan yeelanayo waa bika bisababika marka bisababika axuulu wa ataxarak sababtaadaan ku dhaqdhaqaaqaya wa bika asuulu ilaahow adiga sababtaada ayuun baanaan awood ku yeelan karaa wa bika uqaatil sababtaadun baanaan ilaahayow ku dagaalami karaya waaya marka asuuluna iyaguna waa sidaasoo kale uno waxa aan awood ku yeelan karayaa ilaahayow sababtaadun haddii cadow lala dagaalamayna sababtaadun baan ilaahay kula dagaalami karayaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil ilaahay baa nagu filan mid arrinka loo dhiibtaana isagaa wanaagsan xasbuna allah ilaahay baa nagu filan wa nicma waxa wanaagsanaaday alwakiilu mid la tala saarto ereygaa waxaa yidhi nebi ibraahim markii dabka lagu tuuray xasbiya allah wa nicma alwakiil ereygaa waxaa yidhi nebi maxamed iyo asxaabtii markii iclaamka laga soo daayey ee lagu soo baahiyey war dicaayada odhanaya inna annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum war bani aadamkii oo dhan baa gaashaanbuurtii gaaladoo dhan baa isu timid iskaga yaaca magaalada madiina iskaga carara meel la fadhiyaa ma jire col oo dhan baa isu yimide xasbuna allahu wa nicma alwakiil marka waa ducooyinka uu akhriyay qofka cadow ka baqaya ducaau man khaafa dulma suldaan ducaau man qofkii waa dikriguu akhriyayay iyo ducadii khaafa ka cabsaday dulma suldaan ku awood leh gardarradiisa way habboon tahay qofku had iyo jeer markuu safarka yahay dad ka soo horbaxaane meela uu degayo ama garoommada iyo kowntarada shayaadiintu iyo gaaladu ay fadhfadhiyaan uu maraya iyo qofka daakirka ah ee adkaartan akhrisanaya cidina ma xaniibtay inta badan cidina ma xidhaysa ilaahay baa ka badbaadinaya allaahumma rabba asamaawaati sabci wa rabba alcarshi alcadiim ilaaha samooyinka iyo carshiga iska lahow kun lii jaaran ilaahow jaar ii noqo jaar waa difaac min fulaan ibnu fulaanin hebel waa mid la garanayo magaciisa dee sheegi haddii aanad garanayna waxaad odhan min haadaa ismu ishaarad ku cayimi marna ismi waa wax lagu cayimaa marna ishaaro min haadaa ilaahow kan soo liganee soo fadhiya meesha wa axsaabihi iyo xisbiyaashiisa
min khalaa'iqika oo khalqigaa ka mid ah taageerayaashiisa ka halkaasoo fadhiya taageerayaashiisa ilaahayow jaar iga noqo iga difaac an yafruda calaya inuu igu xadgudbo an yafruda calaya inuu igu xadgudbo axadun minhum mid iyaga ka midi aw yadqaa ama uu igu gardaroodo waxaan ilaahay magankaaga oon jaarkaaga ahay oon difaac kaa doonaya kaa iyo taageerayaashiisu inay ama igu xadgudbaan ama igu gardaroodaan ilaahoodu gardaradooda iyo xadgudubkooda iga celi caza jaaruka jaarnimadaadu way adkaatay wajalla hanaa'uka ammaantaadaa wanaagsanaatay wajalla waxa weynaaday hanaa'uka ammaanta walaa ilaaha ilaa anta ilaa xaq lagu caabudaa ma jiroon adiga ahayn ducadaasuu qofku akhriyaya dee kiiba meela uu indhabeelayba waxay soomaalidu idhahdaan waxaa lagu akhriyaa yaasiinka qaybtii horeysa maxay sadan sadan ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ما يسارون يوم حتى إنه النبي كأخري عليه الصلاة والسلام مركي وبحيي قرقي قالوا أي قارك كهيين مركو كسي بحيين وكأخري يدا لفتجاه ما سقنا في علم السيرة شيء ويشاغان لكن ما سقنا أنت سقنا وأنت مركا أخريس عز جارك شارني ماذا ayaa awood badatay ninka ilaahay la jaarihi ayaa u soo dhacaya wajalla thanaa'uka amaantaaduna weynti amaantaada weyn awoodaada badan jaarnimadaada awood Allahu akbar Allahu a'az ilaahay baa ka awood badan min khalqihi jamii'an khalqigiisa oo dhan ku kasta awood sheegtay ilaahay baa ka awood badan Allahu a'az ilaahay baa ka awood badan mimma akhaafu wa ahdar waxaan ka cabsanayeen ka baqanaya akhaafu wa ahdar aan ka xidaaraysanayeen ka feejiganay waxa la waxaan soo farfadhiya meesha iyo waxaan ka cabsanayo oo dhan de ilaahay baa ka awood badan uu isqancinaya a'uudu billah alladhi la ilaha illa huwa ilaahay baa noo galay ilaaha kaligiuna ee ilaahnimada cid kale ku wehelinin al-mumsiku as-samawati wal ard samooyinki iyo dhulka al-mumsiku as-samawati as-sab'a todobada samaka haya weeye ay yaqacna ala al-ard inay dhulka ku soo dhacaan todobada samo ilaaha ka haya ee samada halkeeda ku haya samooyinka ilaaha sa awood badan illa biidni isagoo doona mooyaan min sharri abdika fulan adoonkaaga hebel la yiraahdo sharkiisa ka magan galay iyo wajunuudihi colkiisa iyo atbaacihi kuwa daba socda iyo ashiyaahi taageerayaashiisa junuuduna waa colki atbaacduna waa kuwan xagga dambe ka socda ashyaacduna waa taageerayaasha nacamlayaashiisa kala noocnooca kuwaasoo dhan ilaahay waan ka mangalay isaga min aljinni wal insi oo jinniya insi bale ilaa way iswataane jinka iyo insigu in badan oo liidata isu jiibiya allahumma kulli jaaran min sharri ilaahu jaar iiga noqo mid garab iyo gaashaana iiga noqo sharkooda jalla thanaa'uka wa azza jaaruka wa tabaaraka ismuka magacaaga wanaagsanaado baraka batay wala ilaaha qeyruka 3 marrat 3 jeer baa ducada akhriyeys daiska si xafid billaah hadaad xisnu muslim ka akhrisata ka laadba wuxuu kooran doona kan akhriyayna muxuu yahay uu sirxay ama waxba ugu akhriyaya marka dabeetana uu qabsan daiska xafid الدعاء على العدو عدو جبال الهباري الدعاء سلاح المؤمن قفك مؤمن كاي waa hub uu leeyahay ducada waanu cadow haysanin hub kan baad adigu haysataan isagu haysan Allahumma munzil alkitab ilaahi kitabka soo dajiyay oo sariic alxisaab xisaabtiisu ka ay degdeg badan tahay oo ihzim alahzaab gaashaanbuurta ilaahay oo jabi Allahumma hazimhum ilaahay oo jabi wazalzilhum ilaahay oo gilgil agaha dhulka uga qaad ha baqdaano ha gariiraano ha firdhadaan sidaas uu ku akhriyay nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu weerarka bilaabay dagaalka uu cadow ku bilaabay oo ducooyinku akhriyay ma yaqulu man khafa qawman kaasmid madaxay mid gooniyay wuxuu ahaa qofka qolo un ka cabsada midba ka badan dad badan buu ka cabsanay shayaatiin buu ka cabsanay اللهم اكفنيهم بما شئت ده دعاء اسك كوبان لكن حكمه وين اللهم اكفنيهم الهي ويقف كافي بما شئت وحا دونيس مسلم باوري اللهم اكفنيهم ده قفكو انها كلا حفظي كري وانه حفظي كروي اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت انت ساكو في الله دعاء من اصابه وسوسه في الايمان وقفك ايمانك وسوسه كغدعي
asxaabta qaarkood baa nabiga waxay weydiiyeen midka iyo shaydaanku uu yimaada uu noo sheekeeyaa markaasaa wuxuu ku leeyahay man khalaqa haadaa waxaan yaa abuuray ilaahay kan kale yaa abuuray ilaahay kan kale yaa abuuray ilaahay oo ilaahayna yaa abuuray buu odhanayaa marka nabigu wuxuu lahaa markuu midkiin caynkaasoo kala yimaad uu yidhaahdo saa su'aalaha ku yidhaahdo dee ilaahay ha ka magan galo oo ha joogsado oo erayadan buu markaa akhriyay waswaas baa kaaga dhacay shaki buu ilaahay xaggiisa kaaga ridaya markaa waa waxyaabaad kaga gaashaaman lahayd eed ku aamusin lahayd shaytaan ilaa haddaad sii hor kacdo khalaas jarku kaa tuuraya yastaciidu billaah ilaahay buu horta ka magan gelaya acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim isticaadadu waataa yantahi wuxuu ka joogsanayaa camaa waswasa fiihi waxaanu shaydaanku kugu waswaasiyeyna ha sii wadine jooji oo iska soo xidh tallaabada saddexaadna yaquulu aamantu billaahi wa rasulih ilaahay rasuushiisa waan rumeeyey ilaahay yaa abuuray ka fikiri maayo anigu waxaan leeyahay ilaahay caaburtayna ma sida isaga khaaliqa oo aan makhluuq ahayna wixii ka soo haray waa makhluuq aamantu billaahi wa rasulih baad ugu jawaabaysaa shaydaanka yaqra'u qawlahu tacaala markaasuu aayaddan akhriyaya oo ku munaasiba markaa meesha huwa alawwalu walaakhiru waalظaahiru waalbaatinu wahuwa bikulli shayin caliim cidiba kaba horrayn lahay cidina ma abuurin ducaau qadaa'i dayn marka had iyo jeer dayntu ay qofka ku cuslaato ducada uu akhriyaya la sheegi allaahumma kfinii bixalaalika can xaraamik ilaahayow igaga beeg xalaashaada xaaraanta wixii xaaraanan kugu caasii lahaa ilaahow xalaal igu arsaaq aan kaga maarmo waaqninii bifadlika caman siwaak ilaahow fadligaaga qanigaga dhig caman siwaaka cidda kaa soo hadha inaan ka maarmo adigunaan kuu baahdoonaan cid kale u baahanay waa ducadaasaad akhriyaysa had iyo jeer marka dayni kugu siita allaahuma innii acuudu bika min alhami waalxusni waalcajzi waalkasali waalbukhl waljubni wadalaci dayni wagalabat alrijaal waa ducadeen hore u soo marno dayntana waa loo akhriya wagalabat dayn wadalaci dayn dalacu waxa weeye waa culayska fiqal culayskay dayntu leedahay iyo raggoo iga xoog bata dadku waxay u haystaan in lagaa xoog bataa wax sahlan inay toobariyo un dee lagaaga kacayo kol haddaad cid baridaba dhimata ducaa alwaswasati fi salaati waalqiraa'a waswaaska salaada dhexdeeda iyo qirada dhexdeeda markaad salaada tukanaysa haddaad waswaasta ama aad qur-aanka akhriyaysa haddaad waswaasto adoo salaada ku jira ducadan akhriya adoo qirada akhriya ducadan akhriya dadka qaarkood baa usallidaas maanta alxamdu 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 buu ku celinaya adu intaad faatixada dhammaynaysa ama wala daalliin taasay ka qabsanaysa qofba meel bay ka qabsataa dad badan markaa waswaaska sidana lagu reebaya acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim wadful calaa yasaarika alaaa saddex jeerna dhinaca bidix wax yaroo khafiifa kaga biifsii salaadaba ku jir dhinaca bidixda kaga yar biifsiinaysa ila xaggaasuu is soo taagaya dawshadued waxaana wax sahlan maaha qofku iminka markuu jinku gale la dabiibayo faryaradaa bidixba ayay qabtaan asxaabulcilaaj faryartan bidix haddii aad qabatiyo haddaad xidho iyo tan midig way kala duwan yihin tanbuu ka baxaa kana soo gelaya bal adiguba laamida ay leedahay iyo dalooladeeda arag meshi waabay nala yarto inala quflanto cidibaaba ku xidhan haddaad kaa xidho qoortaana qabata bay ku leeyihin qayladaasu ka dhammaynaya marka dhinacan bidixdee la sheegayo ee aad u tufayso waa haaneedkiisa waa halkuu ka bilaabaya arrimaha taasina waa sidaasi baa loo akhriyayaa weeye intaasaad markaa iyaduna ducadeedu ducaau man istascaba calayhi amrun qofka arrin uu ku yara adkaaday ayaa isagana la sheegi doonaa allaahumma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan wa anta tajcalu alxasna idaa shi'ta sahlan allaahumma ilaahayow laa sahla fudayd ma jiro ilaa maa jacaltahu sahlan wixii aad fududaysunbaa fudud wa anta tajcalu lxasna shayga murugada le waxaad ka dhigtaa idaa shi'ta markaad doonto sahlan wax fudud ilaaha wax fududaadaa ma jiro waxaad fududaysa mooyaan wixii adagna markaad doonaysa waad fududaysaa ilaah arrimaa ii fudaydi wey isagaad magan iyo marti uta maa yaquulu wayafcalu man adnaba danban qofka dembi gala wuxuu ku dhawaaqayuu samaynayaa la sheegaya maa min cabdin qof addoon ma jiro yudnibu danban dembi samaynayo fa yuxsinu duhuur waysada wanaajinaya dahaarada uma yaquumu fa yusallii ragcatayn intuu istaaga laba ragcadood tukanaya uma yastakfiru llaha ilaahay weydiisanaya dembi dhaaf ilaa afara allaahu lahu ilaahay baa u dhaafa
ilaahay buu ayaa u dhaafay subxaanahu wa tacaala adigoo daahira caafimaad qaba qalbigaagu soo jeedo markaad ilaahay barido istighfaar weydiisato dambigu kaa dhaafay ducaa dardi shaytaani waa wasaawisi shaydaanka waa ducadii lagu eriyay iyo nashuushadiisa iyo naxligiisa iyo dawshadiisa ila waa balaaye baasba qofkii ladaad yahay soo haraaciyaysa markuu isagoo hele al-isti'aadatu billahi minhu wa ina horta ilaahay ka magan gasho a'uudu billahi minash shaytaani rajiim al-adaan waaba ina adaantaba al-adkaar dikrigana akhriyeeyna soo aragna wa qiraa'atul qur'aan qur'aankii baad akhriyi doontaa marka sidaas weeyo adaankiina xadiidka saxiixa nabigu wuxuu ku sheegay inuu ka cararo isaga oo naqas xagga dambe ka siitaynayo isku qarinayo marka qofka xataa haduu ku jiro waa lagu adaanaya ila waa madaafiic bu ku yahay kalimaadkan la ridaya xataa haduu guriga ka hela ka aadaan waada daami doonta islaantii ciyaalkii haduu ku soo dhaxgalo isba qaban weydaan ku aadaan jaarka haduu ku soo dhaxgalo ku aadaan iyagoo laga yaabaa inay raadaan uu waashay wadaadkii waa ka eedaamay laakiin adigu waa dikriday macnaha aanay gaarin mowjada aanay gaarin baad adigu ka hadlaysaa markaa al-adkaar wa qiraa'atul qur'aan الدعاء حينما يقع waxa lagu ducaysanaya marka uu dhaco ma la yardaa waxaanu qofku raali ka ahayn aw yaglibu ala amri ama arrinkiisa ka qaaliba wax culays oo ka qaaliba ama aan ka farxinayn markuu kugu dhaco sidaad isu qancinaysa nafti ila iblis baa la soo kacaye maxaad oranaysa qadarullah wama shaa fa'al taasawras ha oran buu nabigu leeyahay low ha oran hadduu waxa yeeli la haddaan halka mari la miye waxa sindaan ereyga low iyo hadii iska ilaaliyo qadar Allah wama shaa fa'al ilaahay baa qadaray wuxuu doonaana wuu hirgalaya ilaahay wuu sameeyaa wuxuu doono saa isu qanci waa qadar aan laga baaqsanayn asad ku qaracad tahniyatul mawlud lahu wa jawabuhu iyaduna marka Hasan al-Basri ba intanina ka sugnaatay soo socota waa qofka mawlud lahu loo dhalo waxa lagu tahniyadeynayo iyo jawaabu isagu wuxuu ku jawaabayo hadii caruuri ku dhalato wiiliga gabadh mid kasta ha ahaade dikrigana mashruuc ah oo salafku ay markaa oran jireen qofkii ilmaha uu dhashay baa inta loo oranaya sida ka aroostaba wax loo oran jiray isaguna jawaab uu bixinaya barakallahu laka fil mawhubi lak allah ku barakeeyo kan lagu hibeeyay wa shakarta alwahiba ilaahi ku hibeeyayna aad u mahad naqdi wa balaga ashudda ilmahanina waqtigu mudakaraya ha gaaro warusiqta birra samafalkiisana allah kugu arsaaqo ilaahay ku barakeeyo mawhub laka waladkan lagu hibeeyay allah ku barakeeyo mahadnaqo ilaahi waahibka ah ee ku hibeeyana mahadnaqiisa allah ku waafajiyo ilmahanina ha taabagalo oo ha kacaamo ha barbaaro birigiisa iyo samafalkiisana allah ku siiyo adigana allah ku wanaajiyo xaqa ilaahay allah ku garasiyo waladka allah ku hagaajiyo waladka samafal allah ka siiyo waa duco kooban oo macna ballaaran ويرد عليه المهنأ قف كان إساق la tahniyadeeyay wuxuu ku jawaabay ayaa isaguna jawaabaya فيقول حري بارك الله لك وبارك عليك إلهي أكو بركاي وجزاك الله خيرا خيرنا الله كو أبالي ورزقك الله مثله هذه أنا كيغانا الله كو أرزاق وأجزل ثوابك ثوابك أنا الله ويني بوصي نغا تغي نعدل يا waxa muslimku ma yaqaan jawaabaha waa wanaagsan baa iyo ducooyinka iyo barakada iyo khayrkaas la isu wada dhiibaya ma ya'uudu bihi ma yu'awadu bihi al-awlad wa xirsixirki ubadka waxa xirsixirka looga dhigaya iyo deyrka iyo ducada ayaa halkan la sheegaya kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed wuxuu ahaa yu'awidu al-hasan wal-husayn wuxuu xasan iyo xuseyn magan galin jiray oo xirsixir iyo deyr uga dhigi jiray ducada uciidukuma waxaan idin magan gelinayaa bi kalimaatillaahi taama kalmadaha ilaahay ee dhamayska tirana waxigiisa iyo kalaamkiisa abaan deyr idin ka dhigay min kulli shaydaan walba ilaahay kalmadihiisa ayaan idin ka magan galiyay waxba idin ma yeeli kara shaydaan wahaamatin iyo wax kasto wax qaniina hawaamku waa waxyaabahan wax qaniina ee sunta leh ilaahay baan idinka magan galiyay kalmadiisa wa min kulli aynin laama iyo il kasta oo xanuun badan laama xanuun badan ilaashu markay qofka ku dhacdo waa gantaal ku dhacaya marka waa ducada isha laga akhristo
ودعاء أبدك الله أخريه الدعاء للمريض في عيادته قفك هذه يتشار مركو بكانك هي اللي صاب وقنا الدعاء الله أخريه قفك ورورية ولاع إيو والبهار كو أبوري ميسيدي دعاء هذا أخريه لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس بلا مجرد طهور إن شاء الله حدو إلى هاي الدورة وظهور دنبي قال لك نظيفنا واتكفى إيديس حنونك هذا كقول بدنا ظهور أنت أصلا ضانس لا بأس ظهور إن شاء الله إلى هاي بقول نظيفنا والتبرك إن شاء الله نبى نبي صاب وضع أنت أسوق كيري مركز سوق سوهر جد سدا وحوري بل حمى تفور في شيخ كبير تزيره القبور على معنى قولي محا ظهور أبوي وحمد كلول نين أضيع يتال درنها شيء حوالها جينيس ده واي يقول هذا حانو كلنا أنا ده أنا ده إسكندي ما بقول حوالها تكتا لو أديك أكو أرضي حبالي واحد دعوين كم إذا قفك مركع صوب وغطى اخترك تشيفاء ما قولي كوب كينات ذكر جني الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تضبط شهر بعد أنت أكو طفي أسأل الله العظيم إلهي وينا وحأن ويدي رب العرش العظيم عرش قوين إلهي لها وحأن ويدي أن يشفيك إنه كعاف ماريو ومالكتين نبي قلنا وحول قفك ولا الكيسي مسلم كها صوب وغضاء أن أتشي سجلنا صد تضبط شهر أنت أكو آخرية ده إلهي وعاف مارينا يا سبحان ولا تان أتشي سجل on geeridiisu imanin la jasha cidina ma baajise waa ducaa ciyaadati almarid fadl ciyaadati almarid qofka buka soo booqashadiisu fadliga ilaada qala sallallahu alayhi wasallam nabigu waxa uu ida aada ar-rajul akhahu al-muslim markuu qofku walaalkiisa muslimka soo booqdo mashaa fi khirafati al-janna mashaa uu soconaya fi khirafati al-janna jannada khiraafkeeda isoo marka khiraafka waxa lagu fasiray gurashada مريه جنادهم بقرانية طلابه قادم الرعب وقاست حتى يجلس شيرو فريست فإذا جلس مركه فريستنا غمرته الرحمة نحريس الله يبقى الدبوليس مركو بكان كأك فريسته نحريس الله الدبوليس فإن كان غدوة هدي ومركه شوق قلين هراء صلى عليه 70,000 ملك تضبات تنكون أو ملك بود عينيه حتى يمسي إلى وقلبيست وإن كان مساء هدي قلت دبت هينا صلى عليه 70,000 ملك تضبات كن أو ملك بود عيني حتى يصبح جرا وبريسته حديث كان الترمذي ابن ماجه باوريه وصحيح ويه oo maaragtay isaguna sugan yahay marka taasina waa fadliga ku jira qofkan bukaanka ah ee ducada iyo dhikriga maaragtay loo akhriyo iyo wanaaga laga helayo iyo fadliga ku jira wallahu a'lam